meelahan ayay ka dhici doonaan dagaalada biyaha ee mustaqbalku. saxafiga la yiraahdo Tom Hale ayaa qoray maqaal uu ciwaan uga dhigay meelahan ayay ka dhici doonaan dagaalada biyaha ee mustaqbalku, waxaana uu ku bilaabay sida ay toddobaadkii hore sheegtay warbixinta guddiga isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay. xilliyo qallafsan ayayna ku soo aadan halista weyn ee gaaraysa wadajirka noolayaasha iyo kaabayaasha dhaqaalaha marka laga soo tago tan ugu daran ee warbixintu xustay in isbeddelka cimiladu leeyahay waa abaaraha adag iyo biyo-yaraanta badan. intani door weyn bay ku leedahay khilaafaadka biyaha, taas oo dowladaha iyo ciidamadu ugu diriraan si ay u helaan khayraadka biyaha. cilmi baaris cusub ayaa sheegaysa meelaha xasaradahan iyo iska hor imaadyadani ay u badan yihiin inay ka dhacayaan, sida uu ku warramay joornaalka Global Environmental Change. cilmi baarayaal ka tirsan European Commission's Joint Research Center ayaa tilmaamay goobo dalal kala duwan ku yaala oo dagaallo biyo sababeen ka dhici karaan. cilmi baarayaashu waxay baareen isgoosyada biyo la'aanta, xiisadaha juqraafiyadeed iyo kororka dadweynaha si loo ogaado meelaha ugu nugul biyo yaraanta. waxay u badan tahay suurtagalnimo gaaraysa 74.5% ilaa 95% in arrimahani sare u qaadaan xiisado colaadeed oo ka dhashay biyaha webiyada dalalka isaga gudba. tani kama dhigna in biyo kasta iska horimaad keenayaan, waxay ku xiran tahay sida ay dowladuhu ugu diyaarsan yihiin oo ugu qalabaysan yihiin inay iskaashadaan. Fabio Veronesi, madaxa sayniska ee European Joint Research Center ahna cilmi baaraha hogaaminaya daraasadda, ayaa sidan yidhi: natiijada kooxdu waxay muujinaysaa meelaha ugu muhiimsan ee la qiyaasayo inay ka qarxaan dagaalada biyuhu sababaan. qaybo badan oo dhulka ka mid ah waxay ku yaalaan webiyada caanka ee Aasiya, waqooyiga Afrika sida webiga Niil. sidoo kale natiijooyinku waxay ina tusinayaan jiritaanka fursado saa'id ah oo ay dagaallo biyo keeneen uga dhici karaan qaybo ka mid ah koonfur galbeed Maraykanka iyo waqooyiga Mexico ee ku hareeraysan webiga Colorado. cidna ma oga sida xiisadahani u dhacayaan ama loo xallin doono. sida cid kasta og tahay, xiisadahan deegaan siyaasadeed waa kuwa kakan weligood isbeddelada inta badan aan la saadaalin karin, walow ay maangal tahay in qaar badan oo muranada ka mid ah si nabdoon oo iskaashi leh loo xallin doono, misena waxaa jiraysa qaarkood mashaqo ka dhalata. horaantii 1979kii madaxweynihii Masaarida Anwar Saadaat ayaa yidhi arrinta keli ah ee mar labaad Masar dagaal gelin karta waa biyaha, sababtoo ah webiga Niil waa aag colaadeed. 10 waddan ayaa webiga Niil wadaaga: Burundi, Masar, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Suudaan, Tanzania, Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. in ka badan 250 milyan oo qof ayaa dalalkan ku nool, tiraduna way sii labanlaabmaysaa tobanleyda sano ee soo socota. hubaashii dagaalada ka dhasha biyuhu abidkoodba way jireen intii dagaalada caadiga ah dhacayeen. si kastaba, hadda ayay sii caddaanaysaa in khayraadka biyuhu ay muhiimad weyn yeelanayaan marka la joogo caalamka siyaasadda. warbixintan waxaa qoray saxafiga la yidhaahdo Tom Hale, waxaana ka soo xigtay madasha Hoobaan.